Foundation waxa igu kaliftay hawshan inaan
gacmaha la galo anigoo ah joog Norway oo marna ka gamciyay dhibaatada taala wadankii waxaan la hadlayaa qurbo-joogga waxaan doonayaa inaan noqono qurbo-joog wadankooda wax tara waxaan u dhalanay dalkii hooyo qurbo-maynu dhalan waxaan doonayaa cidii doonaysa horumar iyo wanaag si u hormarin lahayd dalkooda iyo dadkooda ay ka qayb qaataan Shaha Foundation. maxaa kugu dhaliyay deeqay inaad ururkan aad aasaasto? waxay igu dhaliyay aasaaska aniga maanta fursadan haysta anoo Norway jooga waxa weeyaan wadankayga halkan ma joogaaye goobtayda wadankii way joogtaa waxa weeyaan ka damqanayaa dadka dhibaataysan taas ay ku dhiftay inaan fikirkan iyo Shaha Foundation asaaso maadaama ururkan aad aasaastay meelaha aad awoodda saaraysaa maxay tahay? ugu horeyn awoodda waxaan saaraynaa caruurta oo ah jiilkii soo korayay mustaqbalkii waxa weeyaan adduunku isku raacay waxa weeyaan caalam waxa laga soo dhisaa caruurtaas maalin ka mid ah adduunkan aynu ku noolnahay nagala wareegaysa hadii la yiraahdo marka xoogga ugu weyn aan saaraynaa caruurtan si loo caawin lahaa iyo dadkan jilicsan maadaama caawa loo fadhiyay xafladii furitaanka ururkan aad aasaastay Shaha Foundation oo ah magac qurux badan maxaad filaysaa mustaqbalka dhow? waxaan rajaynayaa inaan waxyaabaha aan haysanayno inaan ka miro dhalino ayaan rajaynayaa waxa weeyaan haddaan gacanta xuman laga noqon waayo dee wax inoo hagaagaya ma jirto siday dadkuna inoo dhiirigelin karayaan waxa weeyaan iyagoo ka qayb qaata wixii dhaqaale ah nagu soo kordhiyaan wixii muruq ah ay nagu soo kordhiyaan wixii maskax ah maanana nagu soo kordhiyaan waxaan doonaynaa ka qabyaaladeynaynaa watii Soomaaliland weeyaan qabyaaladna ma aqaan runtii maadaama qurbo-joogga mahaysa loo qabtay ma naqaan laakiin waxaan doonaynaa inaan noqono urur Somaliland ku abtirsanaya